السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دواذا ورركي عالمك دل إيا دبدبا واتكريستيون جتين شبكة عالمية ماموس qodobada aad maanta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxda dalka oo sheegtay inay mushaharkooda bishan ugu deeqi doonaan taadaha ka soo cusboonaaday dalka Soomaaliya gaar ahaan agagaarka beledweyne iyo waliba gobol isla beledweyne laftigeeda Eritrea oo sheegtay in laga abaabuliyo gudaheeda inqilaab ama afgambi ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo lagu diiday ninkii uu magacaabay xogayaha arrimaha dibadda igad ku soo dhawaada warkii oo faafidsan warmurtiyeed ka soo baxay dowladda Eritrea isla markaana ku qornaa afka Tigreega ayaa lagu faahfaahiyay xog cusub oo la xiriirta afgambi ay madaxweynaha dalkaasi la damacsanayeen Mareykanka iyo Israa'iil warka ka soo baxay Eritrea ayaa lagu sheegay in hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA ay maleegtay afgambi talada dalka looga tuurayo madaxweyne Siyaas Afwerk kaas oo ay gacan ka geysatay Israa'iil gaar ahaan sirdoonka loo yaqaan Mossad xukuumadda Eritrea waxay carabka ku dhufatay in afgambigaas la damacsanaa uu dhaco sanadkii 2011 laakiin ay hadda uun heshay xogta ku saabsan qorshahaas la damacsan yahay balse uusan hirgelin qoraalkan ayaa waxaa si toos ah loogu magac dhabay shakhsiyaadka iyo laamaha afgambiga loo maleegay in ay ka qayb qaataan oo Eritrea ay sheegtay inay ku kulmeen gudaha magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya sidoo kale Eritrea ayaa sheegtay in qorshuhu ahaa in gudaha dalka laga abaabulo kacdoon dadweyne si talada dalka loogu wareego kooxaha afgambiga maleegayay kooxda qaranka kubadda cagta Eritrea inay dalkooda ka baxsadaan oo ay wadamo kale magangalyo weydiistaan ayay ku dhiirigeliyeen ayaa lagu yiri warmurtiyeedka arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo ay sanadkii hore Eritrea laga qaaday cunaqabatayntii saarneyd in muddo kadib heshiiskii ay la gashay Itoobiya dowladda Eritrea uu hogaamiyo madaxweynaha dalkaasi Siyaas Afwerk oo muddo 20 sano ah saarneyd cunaqabatayn ayaa hadda aan xaaladeedu saxsanayn sida ay sheegayaan wararka hadda aynu kor ku soo xusnay ee ku saabsan afgambiga la damacsan yahay madaxweynaha talada dalka Siyaas Afwerk qodobka kale waxaa ka mid ah in isla shabakadeena maamuus ku qaada dhigi doona وإمسا مشاهرك مدحوينها دالك الصومالية محمد عبد الله فرماتشو رئيس الوزراء دالك الصومالية حسن علي غيره يلا بدا قدومي برلمان كفدرالي الصومالية مدحوينها الصومالية محمد عبد الله فرماتشو قدومياش الوضع أقل محمد مرسل شيخ عبد الرحمن إيا عبد حاشي عبد الله يا رئيس الوزراء حسن علي غيره يا شري كل واغي إن مشاهرك وذا بشنا يقود غيب قليان ama uga qayb qaadanayaan gurmadka fatahaadaha dalka oo saameyn weyn ku yeeshay magaalooyin badan tan iyo shalay waxaa baraha bulshada ka socday hadalhayno kala duwan iyo su'aalo ku saabsan inta uu gaarsiisan yahay mushaharka madaxdan iyadoo dadweynuhu ay ku cabirayeen heerka ay gaarsiisan tahay dhibaatada ka dhalatay fatahaadaha iyo daadad kale oo roobka ragmaday kuwaasi oo barakiciyay kumanaan qoys maamuus TV ayaa baaritaan ku sameysay inta uu gaarsiisan yahay mushaharka madaxweynaha dowladda kaas oo lagu deeqay dadka ay dhibaatadu ka soo gaartay fatahaadaha Soomaaliya maamuus TV ayaa la hadashay mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaaliga Soomaaliya iyo mas'uuliyiin xilal kala duwan dalka ka soo qabtay ayaa maamuus u sheegay in mushaharka madaxweynaha uu yahay $10,000 bishii halka gudoomiyaasha labada gole iyo ra'iisul wasaaraha ay intaas ka sii yaryihiin xildhibaan Maxamed Xaashi Idriis ayaa sheegay in mushaharka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo la isku daray uu ka yar yahay $20,000 Mareykanka ah mushaharka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo la isku daray
waa ka yaryahay $20,000 labada gudoomiyana waa ka sii yar yihiin mana aha wax dhibaatada maanta jirta lagu jabooho iyadoo garoomo iyo magaalooyin lagu bixinayo $100,000 ayaa uu yiri xildhibaan Maxamed Xasan Idriis oo ka tirsan golaha shacabka dowladda federaalka Soomaaliya. Maamuus TV ayaa sidoo kale ogaatay in hadda uusan jirin mushahar sax ah oo ay qaataan madaxdan oo ku qoran dastuurka dalka ama xeerarka kale ee dalka oo markii hore lagu cadeyn jiray. waxaa soo gasha lacag oo $100,000 ah halka qaarkoodna ay ku xisaabtamaan malaayiin dollar sida ay noo sheegeen mas'uuliyiintii aan la hadalay oo qaarkood ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. qodobadeena kale waxaa ka mid ah aad maanta ka maqli doontaan shabakadeena caalamiga ee Maamuus TV waxaa ka mid ah magacaabistii Wogne ee ay diideen Soomaaliya iyo Djibouti oo aan dhaqan galin. go'aankii uu ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed uu ugu magacaabay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Ethiopia Wogne inuu noqdo xogayaha fulinta urur goboleedka IGAD ayaan dhaqan galin sida ay la wareegyo lagu kalsoon yahay u sheegeen Maamuus TV. go'aankan ayaa dood badan iyo diidmo ka dhex abuuray IGAD ayada oo ay ka hor yimaadeen Djibouti iyo Soomaaliya oo doonayay in qof ka soo jeeda dalalkooda midkood xil loo magacaabo. Wogne ayaa waxaa lagu magacaabay warqad ka soo baxday xafiiska Abiy Ahmed 22 Oktoobar hase yeeshee waxaa hadda la sheegay in wasiirkii hore lagu wargeliyay inuu sugo isla markaana aanu go'aankaas dhaqan galin. Ilawaladiya ayaa sheegaya in Wogne loo sheegay inuu sugo magacaabis rasmi ah oo looga dhawaaqi doono shir madaxeedka IGAD oo dhacaya 2 toddobaad ee soo socda. macadda sababta Abiy arrintan dib ugu laabtay hase yeeshee waxaa la rumaysan yahay inuu doonayo inuu shirka IGAD ku magacaabo si aan loo arag go'aan uu kaligiis qaatay kadib cadaadii uu la kulmay. madaxda IGAD ayaa markaa ku kulmana Addis Ababa go'aan ka gaari doona xilka gudoomiyahanimada IGAD iyo kan xogayaha fulinta. gudoomiyaha IGAD waxaa hadda ah Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia halka xogayaha uu yahay Maxbuub Malkin oo Kenya ayaa doonaysa in Uhuru la wareego gudoomiyaha halka Ethiopia rabto xogayaha fulinta. dalalka Soomaaliya iyo Djibouti ayaa taas u arkay mid awoodda IGAD ay ayaga oo heshiis ah kula wareegayaan Kenya iyo Ethiopia. Soomaaliya iyo Djibouti ayaa doonaya in xilalka ururku noqdaan kuwa wareegta ah oo aan hadda kadib lagu loolamin. Soomaaliya weligeed ma qaban labadan xil midkoodna waa xilka gudoomiyaha urur goboleedka IGAD iyo waliba xilka xogayaha fulinta iyadoo hadda u loolamayso isla jagadaas aan soo sheegnay. wararkii aad kala socoteen shabakada caalamiga ee Maamuus TV maanta waxaan ku soo goobaynaa intaas. haddaba daawade haddii aad ka cusub tahay isla shabakada Maamuus TV waxaanu kaa codsanaynaa inaad ku soo biirto shabakada adigoo saaraya subscribe ama meesha taabanaya sidoo kalena furanaya gambaleelka si ay ku soo gaaraan wararka iyo xogaha caalamiga ee soo galin doona isla shabakadan si maalinle ah si aad uga mid noqoto baahda Maamuus TV. sidoo kale waxaanu kaa codsanaynaa inaad la wadaagto asxaabtaada si ay u helaan warar sugan oo ay kala socdaan shabakada Maamuus TV.